arrimaha siyaasadda maalintii aan doorashada u taagnayn aniga iyo nimankii kale saaxiibaday ahay oo hogaamiyaasha ah oo doorashada dalbanayay halka wax oon ka wada sinayn oo manifestadeena qodobka koobaad ka wada ahay wuxuu ahay dastuurkan dib u eegisaan ku sameynayna waa bedelayna waa hagaajinayna waa dhamaystirayna ballanqaadkii noocaas ahay ayaan ku taaganahay dowladeeduna kaasay ka shaqaysaa dastuurka sida loo dhamaystirayo sida looga shaqaynayo hay-adeer shaqo qof kasta ay leedahay ma aha qof kasta ay dalkaani dowladay dooratay daday u dooratay wakiilay dooratay daday u dooratay codkooda ku hadla hay-aday dooratay dastuurka gumeelgaarka aan ka shaqaynaynaa qorayo sida dastuurka loo saxayo loo meel marinayo wada tashi maxaa ballaarin kulli waa sax waa jirtaa dadka intii danaynaysay oo ayagu inay wada tashigaas ka qayb galaan rabtayna inta suurtagal ah waa la gaarsiiyey ama toos ha loo gaarsiiyo ama si oo danabaysan ha loo gaarsiiyo oo maxaan ku rahaa online oo digital ha lagu gaarsiiye qaybaa ansaxday qaybta kalena waa ansaxay wuu dhaqan galayaa wuu soconayaa ilaahay idankiis baarlamaankuna waa ku ammaanan yahay shaqada uu dastuurka ka qabtay iyo shaqada uu guud ahaan sharcida dalkani shuruucdii baarlamaanku qabtay ayaa sabab u ahayday in lasoo maro waxaasoo dhan waa lagu guulaystay haddana shaqo fiican ay hayaan waa bogaadinaynaa shuruucdii kale muxuu ahaye qodob kale soo har waxaa ahayd immediateka dalka doorasho inay ka dhacdo walaalayaal dowladaan nahay cunaqabateyna nalaga qaaday daynaa nalaga cafiyey si dowlad jirtaana loola macaamiloha inaan sidii dowlad jirta u dhaqmi weynahay sax maa war yaa raalli ka ah doorashadii dadbaneed yaa waayo qofka ku qanacsan oo inay cadaalad ahayd oy sax ahayd oo aan laysku dulmin oo aan laysku joor falin oo khaladaad aanay ka dhicin mustawo kasta qofka ku qanacsan waayo ma jiro ma arag kulleyba aniga qofka ku qanacsan oo doorashadii aan rabaa dhahayan laakiin nin siyaasi ah oo dantiisa ka dhex arkay doorashadii dadbaneyd inay socoto oo teendhadii maxaan ku afisyono lagu tiilay ee meeshaasi dani ka gashay dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaal daw ma aha in kaas la dhageysto oo la dhageysan waayo codka hay-adaha dowladda ee idinku aad dhisateen aad samaysateen oo lagu kalsoonaan waayo codka hay-adaha dowladda ee idinku aad samaysateen hadday tahay dowlad dhexe iyo hadday tahay dowladda xubinka dowladaha dowlad goboleedyada xubinta ka dowladaha federaalka hadday tahay institutionska jira aan ku ganacsanaano dalkani doorasho dadban waa ka soo guuray u noqon maayo ilaahay idankiis waa qof iyo hal cod waaye madaxweynaha jamhuuriyadda laga soo bilaabo ilaa councilka degmada heblaayo la yiraahdo laga keeno waa loo coday waa la doorana dadka doorana inta lagu dhacay iyo hebla xagga dib uga dhacay iyo waa la daahay iyo waxaasoo dhan oo maxaan ku raas sifaadka la bixinayaa hadafka waa waxa muhiimka ah meeshaan u soconay inaan gaarno yaa muhiim ah safar dheer haddaad gelaysa inaad qodax ku istaagtay iyo inaad ku hantaa turyootid iyo inaad bahal meel kaaga soo baxa iyo kulli waa suurtagal laakiin haddaad hantaa turyootad gadaal u noqoto safarkii meeshaad u socoto gaari maysid safaraan u soconnaa safarkaan u soconnaa waa qof iyo cod wax kasta oo jirana waa u maraynaa si aan u gaarno qof iyo cod sida nidaamku qabo dastuurka hadda noo degan qabo aan hadda dib u eegayno qodobada waqtigan la jaanqa dastuurkeena 12 sano ka hor la sameeyay 12 sano ka hor xaaladdu dalku joogay maanta ma joogo kalsoonida dadka Soomaaliyeed dawladnimada ay ku qabeen maanta ma joogto meeshi waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inay ku qanacsanaadaan doorashadaas qof powerka awoodda ilaaha iskala dadka loo celinaa dadku inay doortaan waaye war Soomaaliyeed dabarka 34 sano ummadeena ku xirnay inaan gooynaan rabnaa kuwa dabarka inuu ku sii xirnaado rabo dhagihiina ha u furina waa dardaaran odayeed dardaarankaas waxaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo wax yani aan sabab aan uga hakanayna ma jirto waa gaarina nidaamka sharciga la tashiga isqancinta isdhageysiga annagoo wadno waad ogtihiin inta jeer oo siyaasiyiinta waaweyn dalkan intaan dibadaha ayagoo jiro la fariisanay dhageysanay hadday aniga madaxtooyadii tahay xukuumadda hadday tahay
guddoonka iyo muxuu ahay golihii baarlamaanka hadday tahay intaan la fadhiisanay maxay idinla tahay aan dhahan kadib aan qof qof iyo koox koox ula fadhiisanay dalka gudihiisa iyo safaro dibadda anagoo joognaba aan soo wada hadal isla aragnay nimanay meel ay u caddahay oo doorashadii dadbaneed iyo dalka inuu meesha ka dhaqaaqin iyo meesha la joogo in laysku haayo iyo yayna idinkuma marshan xorriyadda laga qaadi kara qof Soomaali ah xorriyad laga qaadi kara ma jirto qof Soomaali ah oo lagu khasbi kara waxaan uu rabin ma jirto qof Soomaali ah oo xukun aan uu rabin la dul saari karaayna ma jirto yaan leedin cabsi gelinin yaan leedin baqdin gelinin dalku wanaagaasna wuu soo maray haddana meesha u sii socdaahay wanaag badan ayaa ka jira waana gaarsiinaynaa ilaahay idinkiisa mar kale dalka Soomaaliya meel kasta aan leeyahay guuleysta waagu waa dhow yahay inuu bariyo haddii alla yidhaah maalmihii wacnaana way soo socdaan aad iyo aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu